markaad akhriyaysa inaad si degan u akhrido adigoo aan eegayn suuraddu goormay talow dhammaanaysaa himisaa ka hadhay innaga inay dhammaataabaa muhim ah laba aayadood aad fahamtaabaa ka roon suuraddu aad dhammayso idan dhammaanta waxa ka roon maxay fahamkaa ka roon saa daraaddeed ilaahayna ma odhan qur-aanka boobsiiye waxaa la yidhi warattil ilqur'aana tartiila qur-aanka si degan u akhriya baa layna yidhi ay iqra'uhu cala tamahul fainnahu yakuunu cawnan cala fahmi alqur'aani wa tadabburihi ibnu kaiir basaale qur-aanka si degan u akhriya degganaanshiyuhu waxay keenaysaa inaad wax fahamtid hadaad nononono ka siiso akhriday laakiin warku dhegta ma dhaafin carabka ma dhaafin qalbigu ma garanin haddaad si degan u akhrido qalbiguu gaadhaya sidaa awgeed ba anas ibnu maalik baa la yidhi nebiga qiraa'adiisii ka warran wuxuu yidhi kaanat madda nebiga qiraa'adiisu mid dheer bay ahayd oo jiijiidan anas si uu dadka u tusiyo wuxuu yidhi uma qara bismi illaahi araxmaani araxiim si uu u dareensiiye dadku say u akhri lahaayeen yamuddu bismi illaahi wayamuddu alraxmaani alraxiimi isagoo madka si fiican u dherginaya hadduu mid tabeeciya yahay hadduu mid dheeraada yahayba ayuu nebigu akhriyi jiray calayhi salaatu wasalaam waxyaabaa kugu saacidaya waxaa ka mid ah inaad ku tala gasho inaad fahamtid inaad ku tala gashay inaad ku barakaysatid waa gaar oo intaynu qur-aanka culammada isugu yeedhabaynu reerka ku akhriya markaa barakaynu u akhriyayna laakiin qiraa'adaada tadabburku waa inay tabarakaysiga ka gedisnaataa oo ah inaad fahamtid waayo aasaasu tadabburku waxa weeyaan inaad ku tala gasho si aad u fahamtid qur-aanka inaad u akhridid markaasaad garanaysaa qur-aanka iyo maqaasidu ka warramayo waxyaaba kugu saacidaya waxaa ka mid ah inaad ogaato qur-aanka cajaa'ibtiisu inaanay weligii dhammaanin weligaa hays odhanin qur-aanka waad tafasirato waad dhegaysatay ma jirto ilaahay kalaamkiisa ninnaba ma dhammeeyo maalintaad aayadda akhridaba war cusubunbaaba kuu dilaacaya adiga qur-aanka intaasoo tafsiir dhegaystay ayaad aayad akhrinaysa una macno cusub baa ilaahay kuu furaya futuuxaadka qur-aanku ma dhammaadaan ma gaboobo sida awgeed waxay idhaahdaan qur-aanka waa inaad akhridaa mar kasta adigoo ku tala jira inaad macaani cusub fahamtid oo aanad ku talagelin intii berigii mufasirku kuu fasiray ama laqabadii laysu kaa saaray un inaad kaga baxdid ama ibnu kaiir intuu qoray un inaad ku gaabsatid maya waxaad isku daydaa aayadda awsacu macaaniha inaad u fahmi karto waxaad isku daydaa aayadda waxa ka horreeya waxa ka dambeeya inaad ku xidho waxaad isku daydaa siyaaqa aayaddu ku socota inaad garatid waxaad isku daydaa aayaadka kale ee ku xidhiidhsan inaad garatid waxaad isku daydaa qisaska qur-aanka ku qoran iyo alfaadoodu siday u kala gedisan tahay maxaa u dhaxeeya aadam markii ilaahay ka warramaya waxaa la yidhi wakula minha maxaa la yidhi ragadan xayu shi'tum ragadan xayu shi'tuma meeshaad doontaan ka cuna baa la yidhi iyadoo ragada reer banu israa'iil laakiin waa laysu weydaariyey reer banu israa'iil maxaa la yidhi wakula minha xayu shi'tum baa la soo horraysiiyey ragadantaa maxaa halkanna ragadan loo soo horraysiiyey halkanna xayu shi'tum maxaa laysu weydaariyey yani haddaad qur-aanka u fiirsato maxaa qisada tan ilaahay markuu ka warramaya erayadan ugu isticmaalay markana erayadan loo isticmaalay qur-aanka haddaad u fiirsato isku daydid inaad ku tadabburtid macno aad u ballaadhan baad garanaysaa waxaa ka mida bay culammadu yidhaahdaan inaad cod fiican ku akhridid taxsiinu sawti cinda alqiraa'a waayo sawtka laftiisa athar leh markuu qur-aanka akhriyo duu sawtin shajay qof cod macaan mid baad qur-aankiisa markuu akhrinaya waad tiiraanyoonaysaaba waad dubaaxinaysaa mujarad codkiisu aad si fiican u dhegaysatay baad qur-aankaad aayaddaad weligaaba akhriyi jirtaad si kale u fahmaysaa ولذلك بو إمام النووي رحمة الله عليه وحليه أجمع العلماء من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأنصار وأئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة
فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها ودلائل هذا من حديث رسول الله مستفيضة عند الخاصة والعامة. إمام النووي باو حليه مسلم أردن صحابة يوحي كده ما يسبى يسكدر ولا يسكوا ده وافق سيبيلي قرآن كأنه عطفي عن الواخريه warkooda baabka ku saabsan iyo xadiista ku soo aroortayna wax la soo aroorin karaba ma habuleeyo uma baahna inaynu soo aroorina buu tilmaamaya. waxay culimadu yidhaahdaan inaad fahamto waxyaabaha kordhiya waxaa ka mid ah tardiid al-aaya bay yidhaahdaan inaad qur-aanka ku celceliso alcawda almutajadida lilaaya inaad dib ugu noqotid qalbiga raad weyn bay ku samaysaa bay tilmaamayaan.